haddii aad rabto inaad guulaysato waxaad u baahan tahay laba shay oo muhiim ah. labadaas waxay kala yihiin sabar iyo joogtayn. kusoo dhawaada janaalka Dami Films. waa Ismaaciil Dami. maantana waxaan ka hadlaynaa sidii aad ku guulaysan lahayd. haddii aad rabto inaad noqotid qof guulaysto waxaa u baahan tahay laba shay oo muhiim ah inaad samaysid. labadaasi waxay kala yihiin sabar iyo inaad joogtaysid. Okay, aan ku horumarno sabarka. haddii aad rabtid inaad horumar gaartid waxaa u baahan tahay inaad u sabartid waqtiga badan ee kaa dhumayo, inaad u sabartid caqabadaha badan ee kula soo gudboonaanaya, inaad u sabartid xanuunka iyo isbedelka ay leedahay horumar markaa rabtid inaad gaarto. ogow, wax walba qurux badan waxay u baahan yihiin waqti. haddii aad rabto guri inaad dhisatid wuxuu u baahan yahay waqti. haddii aad rabtid inaad ganacsi furtid wuxuu u baahan yahay waqti. haddii aad rabtid inaad wax baratid waxay u baahan tahay waqti. haddii aad rabtid inaad nolosha horumar ka gaartana waxay u baahan tahay ayadana waqti. waa muhiim inaad maarto wax walba inaad waqti siisid. wax walba qurux badan waxay u baahan yihiin waqti dheer in la siiyo. mar walbana waxaa ogaataa guulba guushay ka weyn tahay oo waa ka waqti dheer tahay. tusaale, waxaa rabtaa inaad ganacsi furato, waxaa furata garage, waxaa qorata dad shaqaale ah. muqulata isla markiiba dadka macaamiisha dhan inay ku imaanayaan maya. waxay u baahan tahay garage-kaas aad furato dadka inay bartaan, in qofba qof kale usoo sheego, in lasoo tilmaamsado, in lagu soo waco, in la arko shaqada qaban kartid, sidaa baabuurta usoo binaysid, sidaa mechanic fiican u tihid, in la ogaado aad ka horeyso inay lacag kusoo gasho oo macaamiil badan aa hesho. sababtoo ah markii aad garage-ka bilaabeysay magaalada waxaa ku yaalo garage-yaal badan, dad 10 sano suuqa ku jiray. dadkaasaa rabtaa inaad la tartantid. marka si aad ula tartantid dadkaas marka waxaa u baahan tahay inaad sabartid. waqtiga ugu horeeyo ee garage-kaas aad furtid maaha isla markii inay dadku imaanayaan, isla markii qof kasta baabuurkiisa ku keensanaa kuleeyahay meeshaas ka hadlaysan, kan meeshaan ka hadlaysan, mid 500, mid 600, mid $1,000 ku siinayo. macnaheedu maaha bil, 2 bil, 3 bil, 5 bil, sanad waxay kuu qaadato 1 sano bar 2 sano inaad u sabartid. albaabkaas mar walba furnaado, garage-kaada markii taleefankaada loo baahdo lagu helo, markii baabuur lagu keeno maaragtahay dadka si waji furan u macaamiil si ay ugu noqdaan u soo dhaweysid. waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin sabar iyo dulqaad. Okay, aan soo qaadano tusaale kaleeto. waxaa tahay arday dhameeyay dugsi sare, waxaa rabtaa inaad jaamacad geshid. jaamacadda gelitaankeeda waxay kuu qaadanaya waqti. waxaa u baahan tahay waqti inaad gelisid, inaad ka fikirtid kuliyaddii aad bara lahayd. haddii aad ka fikirtid kuliyaddii aad bara lahayd oo ay heshana waxay u baahan tahay jaamacadda markaad bilowdid inaad sabartid, inaad waqti gelisid, inaad maaragtay isku daydid inaad la qabsatid bii'ada cusub aa imaado. shalay waxaad dhiganaysa dugsi sare, maanta waxaad joogtaa jaamacad. shalay waxaa laga yaabaa dugsi sare maadooyinka qaadanaysa inay fududaayeen, laakiin jaamacaddii in maaragtay lagjaradii iyo maaragtay casharada la qaadanay ay ka adag yihiin meesha aad joogto. shalay waxaa laga yaabaa in maaragtay mas-uuliyad saas badan aad isku sii saaraynin, laakiin markaa jaamacad gashay waxaa laga rabaa mas-uuliyad inaad saartid oo aad dadaashid oo aad ku xisaabtid semester walbaba meeshii aad maraysid, dhibcahaaga, horumarkaaga, waxbarashada, isbedelka. waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin waqti. waqtigaasna waxaa u baahan tahay inaad ku sabarto. laakiin haddii aad tiraahdo jaamacaddii aan galay sidii dugsiga aan ku ahay camal aan rabaa, waa socoweys maaha, aad ka soo boodid, taas waxay kugu sababi doontaa niyad-jab. dulqaad la-aanta iyo sabar la-aanta waa waxa kuu horseeda niyad-jabka, waa waxa kuu horseeda ina maaragtahay aad ka caajisid riyadaad lahayd, waa waxa kuu horseeda ina maaragtahay aad isdhigatid oo tartankii afaca kula jirtay aad ka baxda. haddii aad sabri weysid oo waqti gaabanba aad isku dhiibtid waxaa dhacaya inaad niyad-jabtid, inaad beri shalaydid, inaad beri meesha u socotid faca markay gaaraan aad maaragtahay niyad-jab iyo walwal aad ku noolaatid. sababtoo ah si fudud aad isku dhiibtid. inaad si fudud isku dhiibtid waxaa keenay inaad sabri weysid. sabarku marka mar walba waa muhiim. Soomaalidu waxay tidhaahdaa sabarku wuxuu ka qaraar yahay sibirka, ama sabarku wuxuu ka xaraar yahay sibirka. sibirka waa naqaanaa geedka sibirka la yidhaha aloe vera.
geed qaraar badan waaye hase ahaadee daawo ahaan loo isticmaalo waayo dadka daawada u isticmaalayaan geedkaas sibirkay u cabaayaan si ay caafimaad ugu dareemaan marka si caafimaad u dareemaan waa in maaragtay qaraarkaas ay dhadhamiyaan sidoo kaleetana qofkii rabo inuu guul gaaro waa inuu dhadhamiyaa guusha xanuunkeeda dhibkeeda soo jeedkeeda dhafarkeeda daalkeeda waqtiga badan oo kaa dhumaayo kaasoo dhan inaad u sabartid waayo si aad guushaas u gaartid haddii aad sabartid mar walba oo dulqaadatidna waa hubaal inaad maalin uun guushaada gaari doonto waxaad u baahan tahay inaad waqti gelisid naftaada haddii aad rabto inaad horumar sameyso waxaad u baahan tahay inaad waqti gelisid naftaada haddii aad waalid tahay waxaad u baahan tahay inaad waqti siisid ilmahaaga sababtoo ilmaha ciyo dhaqsi wax walba kuma saxayaan waxay u baahan waqti la siiyo haddii aad macallin tahay waxaad u baahan tahay inaad waqti siisid ardayda oo isla markii xanaaqan haddii cashar kasoo diyaari waayaan ama waxbarashadii loo diray ay kasoo bixi waayaan sidoo kaleeto sabarka waxaa u baahan tahay inaad u sabarto naftaada markii aad tiraahdo waxaan rabaa guul inaan gaaro inaan horumar la taabo kala suubiyo inaan bulshada ka dhex muuqdo waxa ugu horeeya loo baahan yahay waa inaad u sabartaa naftaada waa inaad u sabartaa naftaada si aad horumar u gaarto sababtoo ah naftaada waxaa dhacaysa mararka qaar qorshe aad lahayd inaad gadaal uga dhacdid waxaa dhacayso cashar aad rabtid inaad diyaarisid inaad maaragtay ka seexatid waxaa dhacayso inaad barnaamij aad rabtid inaad diyaarisid aad ka weysatid waxaa dhacayso inaad adeeg aad rabto soo adeegatid maaragtahay aad iska ilowdid waxaa dhacayso in social media mararka qaar aad ku mashquulshid markay saas dhacdo naftaada canaanan bani aadana tahay bani aadamkana sidiisa waa sambir dhaxdaa laakiin waxaa ugu fiican qofka markii uu maaragtahay rajadii iyo guushii uu ku socday uu ka dhaco sida ugu dhaqsaha badan leh kusoo noqdo oo jidkiisii hore kasii qabsado markastoo naftaada u sabartid oo aad u dulqaadatid waa markasto oo guusha kuu soo dhawaato waa markasto oo horumar aad ku tiigsatid sidoo kaleeto naftaada markaa u sabraysid waa inaad wax ka barataa caajiska weysida daalka hurdada inaad wax ka baratid tusaale waxaa rabtid maantii cashar inaad maaragtahay diyaarisid lagja lagu soo diray jaamacad inaad diyaarisaa rabtid waa ka caajistay ugu horeyn naftaada u sabar naftaada canaanan bani aadanaad tahay waxaa iloobi kartaa wax waa qalbi kartaa laakiin isku day caajiski maanta caajistay in caawa markaa seexanaysa inaad isweydiiso maxaa sababay inaad caajiso maxaa sababay inaad waxbaro waayo maxaa sababa naftaada inaad xisaabisid xisaabtaas waxay keenay in berri haddii caajiski shalay kaleeto oo soo noqdo in maaragtahay aad wax ka baratay aad diyaar u tihid aad maaragtahay ama 2 ragca tukatid ama exercise u bisid ama si caajis kaaga baxo aad banaanka soo wareegtid hawo soo qaadatid isla markaasna aad kusoo noqotid casharkii ama hawshii kuu taale inaad sii diyaarsato sidaas awgeed haddii aad rabto inaad horumar gaarto waa lama huraan inaad u sabarto nafsadaada waqti ay qaadanaya inaad horumar soo bisid waqti ay qaadanaya inaad marmarsiimaha iyo maaragtahay eedda dadka u soo jeedinaysa inaad joojisid naftaada waa inay barataa haddii aad wax kaa qaldamaan inaysan u sababayn dowladda inaysan u sababayn macalinka inaysan u sababayn arday hebel inaysan u sababayn waalidka ee mas-uuliyaddaas inaad u sababtid inaad nafsadaada aad maaragtahay eeday kartid eeddaas naftaada aa eedaysan qof kaleeto uusan eeddaas lahayn marmarsiiman inaysan wax ku taraynin aadna tahay qof tartan ku jiro markii aad tartan ku jirtid waxaa ogaataa dad kale inaad eedaysid waxay ku keenay inaad isdhigato inaad wax qabsanin inaad horumar gaarin inaad wax baran laakiin qalad kastoo kaa dhaco haddii aad naftaada ku eedayso tiraahdo adaa iskale qaladkaas mas-uuliyad aa qaadid berri waxaa baranay qaladkaas dhacay inaad saxdid eediisana aad dhabar u rilatid kabacdina aad hore ugu sii socoto waxaa jiri jiray waqti aan maaragtahay eeday jiray dadka waqtiga aan dhihi jiray saan iima suurtagal saan iima saamixin laakiin alxamdulilah dadaal badan dheer kabacdi waxaan bartay ina maaragtahay mas-uuliyadda nafteyda aan qaado wixii qaldamana eedooda inaanay dhabarka u rito kabacdina aan saxo aan hor sidaas awgeed markasta oo sabartid wixii aad qabanaysan aad joogtaysid waa mar walbo ay guusha kuu soo dhawaato joogtay oo sabar si aad u guulaysid waxaa jira hal qof kaasoo xariijinta qori kara u dhaxayso fashilka iyo guusha qofkaasina qof kaleeto maahan ee waa adiga nafta sabarka waxaa kasoo horjeedo sabar la-aanta
sabar la'aanta waxay ku horseedaysaa inaad wareertid, sabar la'aanta waxay ku horseedaysaa inaad dulqaadan weysid, sabar la'aanta waxay ku horseedaysaa inaad ciyo isdhiibtid, sabar la'aanta waxay ku horseedaysaa maaragtay wixii aad qabanaysa inaad ka niyad jabtid, sabar la'aanta waxay ku horseedaysaa fashil iyo guuldarro. sidaas awgeed mar walba ku dadaal inaad sabarto. laakiin higsigaaga waxaa u baahan yahay sabar, waxaa u baahan yahay joogteyn. higsigaaga waxaa dadka qaar waxay fashil u yaqaanaan, wuxuu u yaqaanaa qalad aad wax ka baratay. haddii aad wax hiigsanaysid oo aad qaldantid, waa inaad qaladkaaga wax ka barataa oo aad isdhihin waa niyad jabtay, waa fashilmatay ee iska dhaaf waxaan. laakiin waxaa u baahan tahay inaad mar kale soo bilowdid, inaad joogtaysid, inaad sabartid si hadafkaagii iyo higsigaagii aad u gaarto. waxaa jira 6 qodob oo aasaasi u ah sabarka. qodob koowaad waa inaad maaragtay ka faa'iidaysataa fursadda, sidoo kaleetana aad diyaargarow dheer iyo dadaal badan aad u gashaa. tusaale, waxaad rabtaa inaad furto garage-kaas oo lagu suubiyo baabuurta. si aad baabuurta u suubisid, garage-kaas waxaa u baahan tahay inaad qarash galaysid, waxaa u baahan tahay inaad qalabaysid, waxaa u baahan tahay dadkii ka shaqay lahay inaad meeshaas keentid. laakiin haddii sabaryaridaada iyo dulqaad la-aantaada ay kugu riixaan oo aad kala badbadatid oo aad ku degdegtid inaad garage-ka furtid oo waa bilaabay garage-ka furtay, waxaa rajeynaysa macaamiil badan inay ku imaadaan, in shaqada maaragta iska soo daba dhacdo, in dad badan maaragta baabuur iyo suubi ku dhahaan, in dad badan ay kugu aaminaan birtooda oo makaanignimada ay aaminaan. laakiin nasiib darro maxaa dhacay? dulqaad yaridaada iyo sabar la-aantaada waxaa keeneen in qofna albaabku soo garaayo waa in hodi lagu soo dhiibaayo, sababtoo ah uma diyaar garoobin inaad garage furato, xayeysiin uma sii suubinin, dad shaqaalaha ma qoranin, qalabkaagii ma ku dhammaystirno aad garage ku shaqay lahayd, sidoo kaleetana suuqi lama baran. saas awgeed marka waxaa bilaabay shalayna degdega ku bilaawday, maantana inaad ii jabtid oo isla markaas aad isdhiibtid. si aysan taas u dhicin, sabarka qodobka koowaad aasaasiga u ah waa inaad fursadda ka faa'iidaysataa, sidoo kaleetana inaad fursadaad ka faa'iidaysato aad u diyaar garowdid, dadaal badanna aad suubisaa. tusaale kale haddii ayna siiyo, waxaad barataa sida baabuurta loo wado, iskuula dhigataa, macalinkaaga u tagto waxaa tiri maadaama sabarkaaga dulqaadkaaga yaryahay, gacanteeda waa fadhisaa markaan waxaan rabaa inaan imtixaan galo. laakiin macalinku uu kuu sheegay wuxuu kugu dhaawarniyo weli waxaa kuu dhiman saacado badan inaad baabuurka sii wadid, inaad qaladaad badan hadda suubinaysa iska saxda u baahan tahay. laakiin adiga waa ka diiday, waa ku adkaysatay, waxaa tiri ilaa imtixaankii ballamay. adigoo aaminsan inaad imtixaankaas ku baasaysid, adigoo aaminsan inaad guuleysanaysid, adigoo aaminsan isla markaas inaad soo qaadanaysid liisankii baabuurta aad ku wadi lahayd, isla markaasna aad maaragtahay xor noqon doontid oo gacantaada baabuurka wada doontid oo maaragtahay ka bixi doontid macalinkii iskuulkii gacanta kugu hayeen. macalinkii markaa ku madax adeegtay oo sabar la-aantaadii iyo degdegaas aad isgelisay oo ku ogolaaday, imtixaankii aad gashay, laakiin qiyaas maxaa dhahay? aakhritaankii waa fashilmatay, kumana guuleysan liisankii. maxaa yeelay? sabar iyo dulqaad ma suubinin. labaad wuxuu yahay inaad naqato qof feejigan, xataa haddii fursadaha albaabkuu soo garaaci waayaan, inaad maaragta u diyaar garowdid, inaad maaragta fursadaha raadisid, inaad maaragta sabartid. badan sabarkaaga indhaha kuu furo, sabarkaaga kuu horseedo inaad fursado badan raadisid, inaadan fursadaha aad sugin oo maaragta dhin fadhiga ugu maana. fursad waxaa loo baahan inaad abuuratid, inaad raadisid, inaad meelo badan ka fiirisid, noqo qof sabar leh, noqo qof dulqaad leh, noqo qof joogteyn kara waxa uu suubinayo. sidoo kaleetana fursadaha raadi oo ha u fadhin in ay ku yimaadaan, isku day inaad raadisid inaad fursadihii maaragtahay. qodobka saddexaad waxa uu yahay in maaragtahay aad mar walba u diyaar garoodid in fursadaha ay yimaadaan, xatii haddii ay dhici weyso sidaa wax u qorsheegayso, haddii wax u dhici waayaan inaad sabartid, isku day oo u diyaar garoodo fursadda. taas haddii kaa fashilmato, mid kaleeta inaad u diyaar garoodo inay imaado. midda haddii socon weyso, mid kaleeta inaad u diyaar garoodo. mar walba isku day inaad diyaar ahaatid oo fursad walba oo kusoo gasho aad ka faa'iidaysid. talyaani wuxuu dhahaa opzione non perdere. qodobka afaraad waxa uu yahay ha u ogolaanin dib u dhaca iyo howlihii kuu qabsoomi waaye inay ku niyad jebiyaan. tusaale, waxaad rabtay wax maalin inaad suubisid oo kuu suurtageli weyse, habeenkii murug iyo ciil ha ku seexanin, isku day inaadan niyad jebin oo maalin labaadkii aad isku dayday shaqada shalay aad qaaweysa inaad suubisid. waxaad ugu talagashay usbuuc inaad ku dhamaysa, hadday kugu dhammaan waayaan sabar oo dulqaad yeelo oo isku day inaad usbuuca labaad ku dhamaysid. ogolaanin dib u dhaca yararka inay ku niyad jebiyaan. sidoo kaleeto ha kala badbadan oo farxad ha la waalanin markii aad guulo yaryar gaartid.
hana u malayn guushi weyneed aw socotay inaad meeshaas ay tahay mar walbo haddii dib u dhac kugu dhaco wax ka baro ka soo kabo dadaal sidii maalinta uga fiicnaa leed isku day tusaale haddii aad caajistid maanta shaqo rabtid inaad samayso waa ka caajistay caawa markaa sii seexanayso waa inaad isweydiisaa maxaa sabab inaan caawa markaa sii seexanayso waa inaad isweydiisaa maxaa sabab maanta inaan caajiso maxaa sabab howlihii iyaal inaan qabo waayo maxaa sabab qorshihii iyaal inaan fuli waayo su-aalaashan markaas weydiisid waxaa kusoo bixi doona jawaabihii kuu soo baxaan waxaa ku dabaqdaa beri ka maalin haddii caajis aad bilowday isku day maaragtay inaad nasiino soo bisid isku day inaad banaanka tagtid hawo soo qaadatid isku day maaragta waxyaaba ku farxad geliya inaad soo bisid si isla markaas haddana aad ugu soo noqotid hawshaadii oo maalintaadii aad uga faa'iidaysato guli riis gaartidna farxad ay kala badanaysid haddii fashil yar kugu dhacana maaragta aad isdhiibaysid mar walba waxaa isku daydaa inaad dareenkaaga iyo fikirkaaga aad controlshid si aad u guulaysato qodobka shanaad waxa uu yahay inaad u sabartid haddii dad kaleeto go-aan aad ka sugaysid tusaale waxaad dhamaysay dugsi sare waxaad waxbarasho oo lacag la-aan scholarship ka hesho waddan kaleeto waddanka wax kuu qabto muddo 6 bilood in maaragta jaamacadda aad ku bilaabi doontid oo aad waddankaas tegi doontid waxyaabaha dhaceen waxaa lagu dhahay waqtigii muddada 6 bilood ahayd 4 bil kala ku darsantay waxay noqdeen 10 bilood dulqaado oo sabar sababtoo ah go-aamada dadka kale kaaga dhexeeyo adiga ma gaari kartid ee ayaga gaari karaan waqtigooda sii dib u dhacood oo ogolo go-aankooda waqtigiisu gaarayaan ku sabar mar walba waxaa lagaaga baahan yahay go-aamada dadka kale kaaga dhexeeyo inaad ku sabarto tusaale waxaa rabtaa inaad project ama mashruuca fulisid mashruucaasna keligaa ma samayn kartid ee dadoo kaala dhexeeya u ogolo dadkaas waqtigooda inay qaataan u ogolo ayaga systemkooda iyo nidaamkay ku shaqeyn lahayn inay suubiyaan u ogolo si barnaamijkaas uu kugu fulo dadkaas in maaragtay go-aankooda soo gaaraan mar walbana go-aamada dadka kaleeto gacantooda ku jiro ha degdegin hana niyad jebin haddii dib u dhaco ku dhaco ee isku day howlo kale inaad sii qabsatid si markaas go-aamadaas ay soo gaaraan berina adigoo faraxsan aada uga faa'iidaysatid qodobka lixaad ee u baahan sabarka waxa uu yahay fasax qaado haddii shaqadaada kugu badatay maalin kasto usbuuc kasto bil walba aad shaqo ku jirtay oo riyadaada aad higsanayso oo horumar suubinaysay oo dadaalaysay oo sabraysay oo wixii joogtaynaysay waxaa u baahan tahay hal mar inaad maaragtahay bawso samaysid inaad maaragtahay break ka qaadatid inaad nasiino gashid inaad fasax aadid inaad jawiga soo bedelid ogow qofka kartida leh oo sabarka leh waxna joogtayn kara haddii uu maaragtahay break ka qaato ama uu nasiino ka qaato hawshii uu qabanayo wuxuu ogyahay beri ka maalin hadduu soo noqdo inuu meesheedii kasii wadi karaayo oo unu guulaysan karaayo si marka aad u guulaysatid maskaxdaada iyo jirkaaga cadaadis badan ha saarin isku day inaad soo nasatid isku day inaad fasax aadid isku day shaqadaada iyo howlahaaga inaad ka soo nasatid oo maaragtahay maskaxdan kuu soo degto jirkana kuu soo nasto si beri ka maalin markaad usoo noqotid aad hawshaadii si firfircooni leh oo dardar leh aada horay ugu sii wadato joogtayntu waa sabar oo lagu dara ficil joogtayntu waa hal abuurnimo joogtayntu waa sabar iyo dadaal joogtayntu waa inaad maaragtahay fursadaha ka faa'iidaysatid joogtayntu waa ku dhiiradaan iyo dhiiragelin nafsiyan ah joogtayntu waa horumarinta naftaada iyo maaragtahay guulo inaad gaartid joogtayntu waa dadaal iyo maaragtahay joogtayntu waxay ka hortagtaa cabsida joogtayntu waxay ku tahay rajo joogtayntu waxay maaragtahay ka hortagtaa cabsida iyo walwalka joogtayntu waa rajo joogtayntu waa wax positive joogtayntu waa farxad ogowna meesha sabar la-aanta iyo dulqaad la-aanta ee niyad jab iyo walwal iyo stress iyo depression ay ka tahay joogtayntu waa farxad iyo rajo waxaana dareemi kartaa qofkii stress iyo walwal iyo depression hayo inuusan waxna qaban karin nafsadiisa gabaayo laakiin qofka faraxsan wuxuu ka qaadaa firfircooni nashaad iyo dadaal joogtayntiisana waxay maaragtahay gaarsiinay heerka uu rabay maalin ka dambeyso inuu maaragtahay usii dhawaado guushiina uu ku gaaro dadaal iyo joogtayntaas guushu ma waxaa bursanaysid wax walba bursatid way kaa fakanayaan sida balanbaalista oo kaleeto balanbaalista mar walba bursatid way kaa fakaneen ma soo qaban kartid laakiin guusha waa waxaad soo jiidanaysid sida birqabatooda oo kaleeto haddii aad rabto qof awood badan inaad soo jiidato noqo qof awood leh
haddii aad rabto inaad soo jiidatid hogaamiyahan sare leh noqo hogaamiyahan sare leh haddii aad rabto inaad soo jiidatid qof horumar gaaray noqo qof naftiisa horumariyay haddii aad rabto inaad soo jiidatid qof maaragtay magac suubiyey adiga magaci suubi haddii aad rabto inaad soo jiidatid qof maaragtay guulaystay adiga guushii soo jiido mar walba naftaada horumari naftaada ku dadaal caafimaadkaada ku dadaal hurdadaada ku dadaal nasiinadaada ku dadaal sidoo kale tan horumarkaaga iyo waxqabadkaaga joogtay oo ku dadaal tusaale waxa wax xaraan oo laga shaqeeya ah haddii qofka uu dakhligiisa oo kormaro oo shirkadda ka shaqeynaysay ee maaragtay lacag fiican dakhli fiican ay kuu suubiso laakiin nafsadaada aada horumarin ugu beri ka maalin dakhligaaga kortagay wuxuu kusoo noqon doonaa hoos wuxuuna la mid noqon doonaa levelka adiga aad taagantiin sababtoo ah waa sababta dadka malaayiinta dollar ee lotteriga ku guulaysto waxay ka bacdi ee faqrigooda ugu soo noqdaan maxaa yeelay nasiibka ah wuxuu ka badan yahay nafsadooda haddii nafsadooda iyo horumarkooda uu ka badnaa lahay nasiibkii ay heleen lotteriga ku guulaysteen wax badan ay ugu faa'iidaysan lahayn inay dhismo galaan inay naftooda horumariyaan inay guryo ka dhistaan inay ganacsiyo ka suubsadaan inay maaragtahay wax badan ka qabsadaan sababtoo qofka markiisii hore ma aqaanin sida waqti loo manage gareeyo ma aqaanin sida naftiisa loo controlo ma aqaanin sida dhaqaalaha loo maaragtahay loo safe garaysto ama loo manage gareeyo ma aqaanin dhaqaalaha sida loo manage gareeyo ma aqaanin sida lacagta loo dhiil gareeyo ma aqaanin sida horumar iyo projectyaal loo suubiyo hal mar asagoo qof iska caadi ah wuxuu helay malaayiin dollar oo maaragtahay lottery ah laakiin nasiib darro wuxuu kusoo noqday faqri sababtoo ah maxay yeelay markii horeeto nafsadiisii ma horumarin ma baranin lacagta qiimaha ay leedahay waqtiga qiimaha uu leeyahay horumarka qofka iyo xirfadaha ma baranin ee qof iska caadi ahay markii lacag soo gashayna ma yaqaan sida loo manage gareeyo sababtoo si fudud ay kusoo gelay haddana beri waxay uga baxay si fudud awgeed si aad horumar u gaartid u sabar naftaada haddii aad waalid tahay u sabar ilmahaaga haddii aad macallin tahay u sabar ardaydaada haddii aad qof horumar iyo hiigsanaya aad tahay haddii aad qof inuu horumar gaara rabana u sabar waqtiga iyo maaragtay caqabadaha iyo challengiga ka hor imaan doona inta maan ku gaajaysan yahay guul waa meesheeda